iyadoo xaaladaha abaareed oo daran ay ka jiraan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa waxaa deegaano badan oo ka tirsan goboladaasi iminka ka dilaacay xanuuno uu ka mid yahay xanuunka shuban biyoodka kaasoo dad ka badan ilaa 100 ku soo ritay toddobaadkii la soo dhaafay deegaano ay ka mid yihiin Buuhoodle, Taleex iyo Xudun. Guddiga taakulaynta abaaraha ee gobolka Sool oo uu madax u yahay Sheekh Axmed Maxamed Saleebaan ayaa maanta shir jirayd ku qabtay xafiiskooda magaalada Laascaanood waxayna qayladhaan ka soo saareen xanuunka shuban biyoodka kaasoo ku faafaya deegaanada ay dadku ku soo barakaceen ee abaaruhu ka jiraan. Waxaana uu sheegay in dad badan uu xanuunkaasi dilay loona baahan yahay in gurmad caafimaad deegaanadaasi la gaarsiiyo. Sheekh Axmed Maxamed Saleebaan waxa uu sheegay inay jiraan xaalado caafimaad darro oo deegaanadaasi ka jira iyo deegaanada qaarkii oo daawadu ku yar tahay. Waxaanu ka codsaday dadka muxsiniinta inay gargaar caafimaad oo degdeg ah gaarsiiyaan deegaanada ay ka jiraan xanuunadaasi. waxaa dalka ku faafay cudurka shubanka oo dad fara badan laayay ay ugu darantay magaalada Buuhoodle meelaha uu dadka ku dilay waxa kamid ah Xudun, Taleex iyo dhul kale waxaana sababaya kulliba arrimo caafimaad darro biyihii oo aad u xumaadeen la cabi karaynin nadaafad darro waxyaabo fara badan oo nafaqo darrada waxyaabo fara badan baa sababaya arrintaas lafteedu waa arrin soo kordhay u baahan xagga caafimaadka iyo dadkaas xagga caafimaadka iyo xagga noloshaba in looga gurmado. Sheekh Axmed Maxamed Saleebaan gudoomiyaha guddiga taakulaynta abaaraha ee gobolka Sool waxa uu intaasi ku daray in xaaladahan caafimaad darro ee deegaanadaasi ka jira ay wixii karaankooda ka qayb qaadan doonaan. Waxaana uu jaaliyadda Soomaaliyeed ee deegaan waddanka Uganda gaar ahaan caasimadda Kampala ku amaanay deeq lacageed oo ay soo gaarsiiyeen guddiga taakulaynta abaaraha. lacag ay soo dirtay jaaliyadda Uganda jaaliyadda Soomaaliya Uganda oo ay ugu tala gashay gurmadka abaaraha gobolka Sool iyo Sanaag. lacagtaasi gobolka Sool lacagtaas waxay ka heleen $6,386 Buuhoodle $6,000 Sanaag guud waxay heleen $12,000. xaaladaha caafimaad darro ee ka jira deegaano ka tirsan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa barihii ugu dambeeyay laga soo qaylinayay waxaana xanuunka shuban biyoodku deegaano ay ka mid yihiin Buuhoodle iyo Taleex ku dilay dad tiradoodu gaadhayso 45 cashe ugu dambeeyay. Faarax Maxamuud Dubad, TV-ga Goobjoog, magaalada Laascaanood.